والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. ثم أما بعد، waxaad moodaa inaanu daalay oo raggii idinka horeeyay baan wixii aanu haynay baanu ku afuufnay laakiin biidni illaahi subxaanahu wa tacaala waqtiga gaaban aynu wada joogno bifadli illaahi wa minanihi bal waxaynu eegaynaa aynu ka wada hadli karno. waxaan jeclaystay markaa inaan idiin dooro mowduuc muhiim ah oo marka xaqiiqada la eego mowduucaasi wuxuu khuseeyaa jaaliyadda Soomaaliyeed bishakli khaas, laakiin waa amar caam. mowduucan waxa weeye waa dowr almar'a fi lislaam, gabadhu dowrkay ka ciyaarto ama looga baahan yahay markaynu nadariyadda islaamka aynu eegno. dad badani waxay moodaan inay diinta islaamka ay ku dhisan tahay ragga, oo ninku uu yahay dee ninka dabadda u baxaya ee u soo quudinaya reerka, hadduu u dagaal yimaado ninka gurmanaya ee reerkii difaacaya. xaqiiqadda iyo waaqicuna sidaa wuu ka duwan yahay. haddaynu dib iskugu noqonno oo taariikhdii nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam iyo taariikh alislaamba aynu eegno, waxa inoo caddaanaya inay gabadhu ka muhiimsan tahay ragga. oo meelo badan marka laga eego, oo ilaahay subxaanahu wa tacaala suurati aali cimraan sheeku inooga sheekeeye, sheekadaasoo ah sheekadii maryan hooyadeed imra'ati cimraan. imra'ati cimraan marka ilaahay subxaanahu wa tacaala ballan bay ugu qaaday, innii nadartu laka maa fii batni muxarara bay tiri, ilaahayow uurkan aan sido adaan ku siiyey. ayadu marka waxay rajaynaysa oo ilaahay ka rajaynaysay inan uu noqdo oo masaajidka masjid alaqsa ka shaqeeya, oo ama khatiiba ka noqdo ama imaam ha ka noqdo ama khaadim ha ka noqdo. laakiin waxay rajaynaysa bay culammadu idhaahdaan inuu noqdo wiil ama inan masaajidka mas-uuliyaddiisa qayb qaada. ilaahay bay u hortay markaa ilmaheedii, innii nadartu laka maa fii batni muxarar, waa khaalisan lilaahi subxaanahu wa tacaala. ilaahay wuxuu qadiray markaa subxaanahu wa tacaala inay inan dhasho. qaalat rabbi innii wadactuhaa unthaa, ilaahay xaaladdii way isbedeshay bay tihi, inan baan umulay. waxaan umulay waa inan. inantu rag uma khudbadayn karto, rag ma tukin karto, ragga ma dhex ordi karto. dee waxaan moodayay muu noqonin caynkay weeye xaaladdii oo kale. ilaahay wuxu uhi wallaahu aclamu bimaa wadacat, ilaahayna wuu ogyahay waxay umushay. walaysa adakaru kalunthaa, xikmadda halkaa eeg, walaysa adakaru kalunthaa. dakarku, wiilku iyo habluhu isku mid maaha, isku meel maaha. waayo marka la eego meelo fara badan inanta ayaa ka faa'iido badan wiilka. marka waxaan doonayaa maanta badoorka ay gabadha muslimadii ay ku leedahay iyo waajibaadka laga filayo inaynu wax ka yaro taataabano biidni illaahi subxaanahu wa tacaala. mana jecli had iyo goor inaan cid cambaareeyo ama aan cid wax ku sheego, laakiin mawaadicdan ka hadlaya waa mowduuc caama. ma doonan inay dumarku halka ka soo boodaan ay dagaal nala galaan maanta, laakiin waxaynu doonaynaa inaynu taataabano waxay leeyihiin iyo wixii lagu leeyahayba. dumarku ilaahay subxaanahu wa tacaala horta fadiilad buu siiyey aanu ragga siinin marka islaamka ay timaado, taasoo ah gabadhii ugu horreysay, qofkii ugu horreeyey muslimay ee kalimati tawxiid ku dhawaaqay marka nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam laga yimaado dee ruux dumaru ayuu ah.
والنبي محمد صلى الله عليه وسلم رسالة دي مركي لو سوديبي وحنباري دي قفكي لقادي وحوها خديجة رضي الله عنها نبي صلى الله عليه وسلم مركو أصغر نحسا وقريرية وصعر ري قرقي سيبو يمي ومو بايرين حمزة بن عبد المطلب أو لقو يقاني إنو يهينين قاسية أو أغارصة لبحيرة ومو تجن أبو طالب رضينا أو أذيركي الله يقاني إنو يهي عاقلكي يد السلطان كي مقالة لكن النبي صلى الله عليه وسلم وحلينا مركب مؤرخين تكهض ليان خديجة أي أصع الرسيل المير ضبط أي مرة قد شيف سطي أصغو أرجع حسن أو نحسن وحسدا أسمينا أصغو أقدقن كعرب عربت إن لقيا بين عيبته أو لقوا يصدون النبي صلى الله عليه وسلم ورما قبل بعضو عررت محاد أقو إيمان وإذا رجوا حكوا قبان كره لكن وحو أقام مقدارك يقبل يسميشي تاجنت هاي ماركي واكي صاع الري إلي زملوني وأنا قرنسا قفك مركا خديجة وتيقول جوابتي كلا والله لن يخزيك الله أبدا إلهي ودقا يا الله كما حمينا يمدحكم ردقا يوم وحنوقت هذا مركا قبرنا مسلمات دي إلهي سبحانه وتعالى ميل شرف لا أي كسي الدين الإسلام وها انت أقدر قف نفط الدين نفط لقا قادو إسلام آودي ولدي له ده وحي هيد سمية عمار نين أمور إيمان إسلام قف كي جوجو الريات انتي ديكي سألوك الله دقي الروحي سلقا قادي إسلام كآودي إسلام ده وحي هيد سمية waxay ku tusay marka gabadhu muslimadda sharafta ay leedahay qiyaasa waxa ilaawina waxaynu ka hadlaynaa mujtamac cajiiba mujtamac hablaha aasi jiray dumarka kala dhaxli jiray gabadhu qiimo aanay lahayn inanka iyo odayga iyo adeerka kolba gabadhu qofkii soo gaadha ayaa ka haysan jiray dumarka marka qaarkood ragga xitaa rag ways amaahin jireen wuxuu oran jiray gabadhiisa wuxuu ku oran jiray orodoo hebel u tago uurka soo qaad laga yaabo marka qaarkoodna si taariikhda inoogu sheegayso inay gabadhu intaasoo nin khaymad ay la gelayso kolba kii ay doontay ilmaha ay siinayso mujtamac baynu ka hadlaynaa marka aan dumarka qiimo siinin maca daalika ilaahay wuxuu ku bilaabay qof muslima qofkii ugu horreeyey muslima inuu noqdo gabadh qofkii ugu horreeyey dhintaana oo diintana u dhinta inuu noqdo qof muslimada oo gabadha waxa intaa inoo dheer qofkii ugu horreeyey xoolihiisa islaamka u huray waxay ahayd khadiija radiyallahu anha gabadh taajirada oo la yaqaano oo xoolale oo sidayna maanta aynu waa business lady ah oo loo yaqaano millionaire inay magaalada ay ka tahay magaalada Makka ayay diintii ilaahay xoolaheedii u hortay intaan la soo gaarin Abubakar intaan la soo gaarin dadkii ka dambeeyay Uthman oo kale intaan la soo gaarin dadkii markii dambe muslimay Khadiija ayay ahayd radiyallahu anha qofkii ugu horreeyay ee xoolaheedii u horay diinta ilaahay biidnihi subhanahu wa ta'ala waxa inta inoo dheer haddii sheekadu caynka ay tahay markii nabigu sallallahu alayhi wa sallam uu soo haajiray waynu garanaa in hooyadii Abubakar hooyadii iyo dooray ka ciyaartay Asma bint Abi Bakr radiyallahu anha waxay ka ahayd dadkii nabigu sallallahu alayhi wa sallam uu doortay gabadh 9 bilood ilmo uura ku sidas kama yaqulu ba'da al-mu'arrikhin gabadh foolanaysa oo de 9 ki dhamaysay ama ku dhow ayay inta nabiga sallallahu alayhi wa sallam quudka u qaaday wuxuu maalinta cunayo ayay buurta la kori jirtay saddexdii cisho nabigu sallallahu alayhi wa sallam uu dhuumanayay de qofkii cuntada u geyn jiray wuxuu ahaa gabadh bay ahayd oo waxay ahayd Asma bint Abi Bakr radiyallahu anha gabadh fariida ayay ahayd oo nabigu sallallahu alayhi wa sallam kidama loo bixiya daat an-nitaaqayn waxaas oo waxaan uga jeedaa gabadha muslimadii door muhiima ayay ka ciyaartaa marka la eego diinta
meel halbowla ana way kaga taallaa ummadda nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam waayo bisalaaxiha hadday gabadhu hagaagto bulshadu way hagaagaysaa hadday gabadhu fasaaday xumaatana waynu taataaban doonaa bulshaduna way xumaanaysaa gabadh la odhan jiray umma sulaym oo dhashay anas binu malik bal xikmadeeda lagu tusaya waanu naqaana qisadeeda meer badanna waynu ka maqalay culimo fara badanna waynu ka dhagaysanay umma sulaym xikmadeeda bal eeg nebigu sallallahu alayhi wasallam markii uu soo haajiray oo la soo qaxay ayay waxay aragtay raggiyo dee nebiga sallallahu alayhi wasallam hareeraha ka fadhiya cilmigii bay ka qaadanayaan diintii bay ka baranayaan taqwadii bay ka qaadanayaan nebigii bay sallallahu alayhi wasallam haddii goor la fadhiya way u timi markaa nebigii iyadoo ilmaheedii yaraa wadda ilmo yaroo 10 jira ayay waddaa ama culamadu yidhahdaan 8 jira ayuu la yidhahdo anas binu malik anas bay keentay way u soo badashay way soo qurxisay waxay tidhi yaa rasuul allah ha kuu shaqeeyo kan yari ha kuu shaqeeyo ha ku caawiyo qof gacan yara waad u baahan tahay oo markaad weysada ama kabta ama dee wax yar aad diratid oo dee haddaad wax arrimo waaweynaad saxaabadda aanad doonin inaad aad u diratid kan yar u diro yaa rasuul allah una ducee bay tiri una ducee nebigu sala allahu calayhi wasalam wuu duceeyo wuxuu yidhi ilaahayu cumrigiisana dheere risiqna sii ballaadha caruurtana u barake anas wuu yimaadaa habeenkii nebigu iska ag fadhiya waa ilmo yar umma sulaym marka waxay tidhaahdaa ilmaheeda waxay ku tidhaahdaa war ii war maxaad nebiga ka baratay sala allahu calayhi wasalam cilmigii markaa maalintii oo dhan uu dhagaysanaya ilmaha yar ku dhacayay ayuu habeenkii hooyadii u gudbiyaa waa hooyo xakiimada oo cilmi iyo caqli ilaahay subxaanahu wa tacaala siiya haddaynugu noqonno dib taariikhda ummadda islaamka waxaad arkaysaa ummadda islaamku waxay ku dhisnayd dumar waayo culamadan aynu dhagaysano oo dhan dee horta dumar baa dhalay waa kow laakiin ciddii soo ababisay ee maalintii ugu horreysay ku canqarisay cilmi iyo taqwo iyo cabsi ilaah dee aabbaha muu ahayne wuxuu ahaa hooyada ayay ahayd imaam axmed binu xambal waan idinka sheekeynayaa ama mid baa idin taaban karaa imaam axmed binu xambal wuxuu ka dhashay reer ahlilcilm ah laakiin fuqara ah aabihii markaa wuu dhintay hooyadii markaa yani gabadha muslimadii doorkii ka ciyaari karto ayaa lagu tusaya hadday ay saalixad ay tahay hooyadii marka intay soo kaxayso ilmahan yar ayay la soo gudi jirtay waa gudcur waa madow magaaladu sideennan dee sidaa kama wada hilaacayaan waa saq dhexe ilmihii yaraabay keentaa masaajidka intaan la adimin masaajidkay soo gelisa halkaa fadhiisa bay tidhaahdaa xagga dumarkay fadhiisataa salaat alfajr bay la sugtaa ilmaheeda markuu salaat alfajr ay tidhaa macallinkiiyo wax u dhiga daba markuu ilmihii yaro kobco uu yaro weynaaday ayay habeenkii guriga yaquul axmed bin xambal asaga iska hadlaya anoo yar ayay hooyaday odhan jirtay guriga adiga u nina guriga adiga u imaama guriga adiga u sheekha si nin u hadal si sheekhnimo ah nolol dhaqan si nin caalimo oo taqwad leh u behave garayo dee akhlaaq lagugu arko qiyaama leyl ay odhan jirtay adiguna tuki adiga bay leen imaamkii guriga ah hooyo wuxuu yihi hooyaday markaano ilmo yara ayadoo iga quraan badan oo iga cilmi badan ila waa nooc min atarbiya ayay i joojin jirtay soo odhan jirtay adigu salaada inoo bilow wuxuu yidhi markaan yaro weynaaday ayaan hooyada intaan soo gaaray marxaladeedii baan dhaafay markii dambe waxay odhan jirtay hooye adigu sii wad anigu waan daalay iska seexan jirtay waa xikmad markuu 6 iyo 10 jir noqdana waxay tidhi orodo ka tag meesha cilmi doono iyo diin waa hooyo subxaan allah imaam ashaafici sidaas lag yatiim buu asna ahaa imaam maalik binu anas markuu yara ayay hooyadii intay soo qabatay bay u soo badashay maryihii culammada
زي العلماء هيئة العلماء بيقصوا بدشي وحي كتري اذهب وتعلم من ربيعة الرأي وخذ بخلقه قبل علمه وفي رواية وخذ بأدبه أو من أدبه قبل علمه أرض بيتري بح لفرس ربيعة الرأي وعالم كي مركب مدينة شوقي إذا تكبر أنت عن العلم جيسة كبرانين وتوجيه هو ينماء وحكو تسوس مركا دورك هو يدو ميشو وكتاقية هاي تربية دا أمد إمام ابن تيمية وين نقلنا أحمد بن عبد الحليم وابن تيمية ومركا تاريخ دا أمد اللي لقي مدى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عالم لقو قياسي كره الله أوران كره نكن إسكو علم بيهنو إسكو فهم بيهنو إسكو درجة بيهن مجرو وهانين عالمة أو بليغة أو كاتبة أو مفوهة أو جميع المذاهب كوقت قاعد شري يقانة أو متقنة أو مجاهدة أيها ولا يخاف ولا تأخذه في الله لومة لائم نين لمدي موجرين وحنبارسي مقعي أيدي وابن تيمية لما إلى هذا أحمد بن عبد الحليم لقيا به قارب بدن هذا ما وهلك فدي هدي أن ويدين لا وابن تيمية مقعي عيسى بل مقعي عيسى شاقة إن قارب بدن كل من لها يعني كبيح الحين أي لقيا به مقعين أن قانا وتيمي وابن تيمية وايو أيدي أيال أورنشري تيمي أو عالمات أهين markii la arkay ilmo yaro naabigada oo wax ilo dhiba xafidaya oo ma sha Allah taqiya oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka cabsanaya oo cilmi xambaarsan ayaa la waniyo ilmahaasi yuu la mid yahay saarada ayaydi saarada waxa loo bixinaya ibn Taymiyyah al-Bukhari waa lamid Sufyan al-Thawri waa lamid hadiyaan idin soo qaado Sa'd Layth bin Sa'd waa lamid علماء حسن البصري ولمد سعيد بن المسيب ينتيس ولمد يعني هدين ما انت ولا كان اينو تاغنونا اينو سنهنو تيريغاريا اما حس علماء اي هو ينكود سو كوريين اما اي اثر كلهاين ما دماينينو waxaan uga jeedaa marka hooyadu doorkay kula haan karto ilma iyo doorkay ka ciyaari karto jaaliyada ilmihi marka hadduu yahay ilmo saalixa oo hooyo hagaagsan ay dhashay waxaan laga filayaa marka inuu ummaddu ay ka faa'iideysato oo ummaddu ay dhaxasho wixii ay hooyadii ku shubatay inan iyo inanba ayagoo isku mid yihiin sheeko yar baa dhacday kada wada manqasheen oo ku saabsanayd Saciid bin Musayyib radiyallahu anhu wa rahimahu ninkaasi wuxuu ahaa nin taabiciya oo laakiin caalima oo ummaddu ay aad iyo aad uga dambayso sharafna intaas ugu filayd laakiin waxa loogu abtiriyaa gabadh uu qabo inuu dhalay Abu Hurayra radiyallahu anhu inta waxa u dheer inan ayuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu siiyay qurux iyo akhlaaq iyo cilmi bale Amir al-Mu'minin iyo caruurtooda iyo dadka umarada ay dadka xoolaha leh maalin walba mid bay soo diraan waxay dhaw bal inanta nasiyo inankaan u guurine wuu diidaa ma doonyo mar inantayda inan meel fitna ageeyo waxa markaa la soo sheegay nin ardadiisa kamid oo dhalinyaro Abdullah ibn Abi Wadaa'a la oran jiray ayaa 3 cisho ayuu ka maqnaa xalaqadii maalintii dambe ayuu yimi سعيد بن المسيب مركي حلقات دوي دماتي بكوي ور محار دعي صدح شكمان أرجع محار دعي وحول يا إمام بويري قبل دي دماتي حاس كان قبل أيار دماتي غيركي غير حاس مركار إن أنت قبل دي من آسية دي حاس كمان آسية صدح داعي شو مشغول بانها يقرها لي هاو وحول ور ما جورست إسلامي يمكن أورانيا بلا وحي وكاس موش عليهم بالأورانيا يمكن مركان ما قوستي بويني صدق شاك سو وريكتي خير ميالت وحولي يا إمام بويني ومن يزوجني يا يقولين يا بنين فقير بانا يا يقولين أدونا صدح دينار يوم صدح درهم أيام كلا يا هيبا حولو أن شيكتو وإن أنا نقول جد فريستو أن يرد يا مهر يا أروس وحاسي ما بتشيران بويني يا يقولين يا إنانتيس وحولي أنا كور هذا كوجوري إنانتيدا فاطمة بنت سعيد
wuxuu marka argagax barto waan miyaan naxa mise waan farxa ma shaki baa waxaan wadaadku mi yaro waashay mise wuxuu ku hadlayaa xaqiiqad meheri buu waaye laba uu yeedhay marka war markhaati ka noqda inaan ninkan inantidii aan siiyey wuxuu yidhi marka waxaan hay faqiir kaxyaan sacluug shil ma haysta buu yidhi waanan soomanaa gurigii baan iska tago iska soo afur wataa la tukaday waan tagay gurigii baan iska dhex fadhiis wuxuu yidhi marka qurus yaroo roodhiyo angegan aan saliid anoo ku dhuuqaya wax kale guriga ima yaalaan buu yidhi in yaroo milixoo angegan ayaa albaabka la garaacay faqultu man waa kuma qaala saciid waa saciid buu yidhi wuxuu yidhi saciid waana aqaanayba magacii wuu igu soo dhacay buu yidhi tolo ma saciid hebel hebel baa mise waa saciid hebel hebel mise waa ninka saciid bin musayib mooyaane waayo buu yidhi 40 sannadood waxay ahayd caadadiisu inuu cishaay uu tukado uu gurigiisa uu tago cid lamu hadli jiro albaabkii baan furay waaba saciid bin musayib taagan meeshii maxaa dhacay buu yidhi maad ii yeedhi anaa ku iman lahaay maya buu yidhi laakiin waxaan dareemay buu yidhi inaanay cadaalad ahayn inaad keligaa caawa seexatid ayadoo gabadhii guriga magaalada gabadhaadii magaalada ay joogto wuxuu yidhi markaa intuu ka yaro dhaqaaqay mise waaba gabadhii halkan taagan buu yidhi waaba gabadhii halkan taagan wuxuu yidhi marka wuu soo riixay albaabkii buu noo soo xidhay maanu wada sheekaysanin maanu haasaawin caankay u egta garan maayo niqaab bay xidhan tahay ayadus ima garanayso inan dee maasha allah facebooka ragga kala haasaawadana may ahayn inan maasha allah sawir cadcad oo qurux badana inta facebooka soo geliso hadhowna dhagax yaroo madow kaaga soo baxana may ahayn ee waxay ahayd gabadh dee ku eeg oo gurigeeda taqaana oo diinteeda taqaana wuxuu yidhi markii ay soo gashay oo albaabkii noo xidhay ayay inantu suuxdeen naxdid aawadeed anna wuxuu yidhi marka waa naxay horta wuxuu yidhi lugtan ku yaro dhuftay roodhidii iyo ciid iyo milixdii iyo waxaan sidii ceebtaada arkin ee is-astur wuxuu yidhi waan cararay dushaan isku taagay waan qayliyey kooyadana guriga ka maqantay wuxuu yidhi yaa ayuha annaas زوجني سعيد بن مسيب ابنته سعيد بن مسيب إن أنت سوي إيجورية حتى يعرفتان برتو جوري قبل كسر بحيسة هورنا ودات كسوق مذوب مرة إيرالي أوكسون هذا وحيري إسلام حافظ دايدو شار كيجا آيات كذبت بينالات بيتري سعيد بن مسيب حين أنت هذا السعلوك أديكو كلا وقدرية هو يدي بين مقاشي والقيرة دي وحي قتري إن لمستها هديت إن أنت تابتت فويلك ثم ويلك وأنكو لي هذا إن أنت تابتت بي وحولي وي إسلامتي باتمي إن أنت قولي قبال الله يقصاري مري قولي الله يقصاري أي حد الله يير إن أنت يو لقاضي لسوق قرحيي لسوق هجاتيي ما شاء الله ليسوا دياري وحولي وان سوق علي فما رأيت أجمل منها قط قولك قروح بدن ولي يا الله ما ضحيكم يصلي عن بوي والنعم وحول إلهي سبحانه وتعالى هبينك بدل لبيك اللهم ما لبيك كبعد بوي الصبح دي بان كعي إذا إمك أرض بان هاي وضيقة ده إن أنت كجورسنا ومعلن كيك ما هبصامي كرم وأنت جيبوي وعن بحي وعنده ينبحوا إلى أين بيقول حاجة تجلسه ده وضيقي شيخ سعيد بن المسيب حكسر لي قنايا قالت اجلس فعلم أبي عندي وحو أبهي يقانور رمبا أنا جا هي بل يرفع لي سبيت الوكاي أنا وحكور لي جايين حبلها ما أنت ده بدن إلا ما رحم ربك مركز لجورسدو متكورنا علمي بانكوها يا مجرتو أما وحبان كور لي جاي مج إسكبداتها لكن لقيا بإنك كتر هذا بل إن جاي شريتون أما إن جاي إن ملك لا إن جاي أما الدون يا أموره سأكرر ما ويدو إن أنت علماء دي مركا ويحللين وحي إلى أدن يا صوت تربية دي فضلك يا الله السياء الضباك ولوغو أبتري يا خير كان مسعيد بن المسيب مسه يده ويحدو ما يقول لك شوقي وحليل أبوه وشقكم الله
aabbuhu waayo aabbuhu dee markuu guriga subaxdii ka baxo masaajidku fadhiista duruus buu akhriya habeen oo dhan iyo maalin oo dhan cishaay buu ka soo rawaxaa goormuu wax tarbiyadeeya goormuu wax u dhigaa carruurta goormuu kala dabbara maba waqti ma hayo laakiin xikmaddu waxay ku aasantay waa hooyada baa la yidhi marka gabadha muslimadda ee Soomaaliyeed haddii ay garanayso doorkeeda iyo muhiimadda ay leedahay waxay u xidhan lahayd inay carruur wanaagsan inoo soo kordhiyaan waxaa tii markaa dumarka iyagoo intii lagu leeyahay baynu sheegaynaa waxaa timi dowr almar'ati alfaasida gabadha faasidada ee aan muslimad hagaagsan ahayn haddii aynu runtii aynu gudagallo ama ay dee inala joogto mafaasidkay leedahay ayaynu taataabanaynaa qudheeda kow nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu inoo sheegay fitnadii ugu horreysay reer bani israa'iil lagu rogay ama lagu ibtileeyey dumarkay ahayd ina awala fitnati bani israa'iil kaanat fi nnisaa dumarkii markay u taag heli waayeen oo dumarkii reer bani israa'iil ay qaseen bay ilaahayna subxaanahu wa tacaala reer bani israa'iil uu rogay gabadhu haddii ay saalixo tahay mujtamaca way hagaajinaysaa haddii ay faasida tahayna mujtamaca way hallikaysaa way rogaysaa nebigu sala allahu calayhi wasalam xadiiska wuxuu ku yidhi ittaqu dunya wattaqu nnisaa adduunkana iska ilaaliya dumarkana iska ilaaliya waayo gabadhii haddii aanay saalixad ahayn ay taalixad tahay waa musiiba inta waxaa u dheer hooyadii haddii aanay saalixad ahayn carruurtii aynu ka rajaynaynay iyo salaaxii aynu ka rajaynay carruurta iyo durriyaddan ka sugaynay waa ka shub hadday hooyo ay tahay aan ilmihii qur-aanka baraynin oo aan diintii baraynin oo aan akhlaaqdii baraynin oo ilmaha caynka loo ixtiraamo aan baraynin caynka aabbahooda ay u ixtiraamo aan baraynin dee waa ka soco waxaa idinka sheekaynayaa gabadh gaalo ah waa gabadh madow oo soo muslimta marka hore gaalo ahayd ayaa gabadhaasi waxa iga yaabiyey gabadha anaaba soo muslimiyey waxa iga yaabiyey marka la soo muslim yani ana u qabtay shahaadada waxa iga yaabiyey gabadhani siday ninkeeda ula dhaqanto nin baan u guuriyey kaloo madow African American waxaan deganay markaa Maryland ma yiraahdo oo Mareykanka ah ninkii markaa wuxuu igu yiraahdaa Saciid iimaan buu dhahaa gabadhu waa cajiib gabadhu ilaahay noo barakay dumarka African American waxa lagu yaqaan dumarka madmadow soo muslimay Mareykanka degan inay taf yihiin oo ay adag yihiin oo taagan yihiin oo ninka halka hadii goor ay ka jiraan oo laga acuudu billaysto ninkana gabadhiisa wuu amaanaya waana aad buu ugu faraxsan yahay inantii baan u yeedhay ii waran baan ku waxay tiri caynka ninka loola dhaqmo ninka gacanka loola dhaqmo waxaan ka bartay hooyaday haye waxay tiri hooyaday waa hooyada gaala iyo aabaheedoo gaala hooyaday bay tiri markuu aabahay yimaad intaanu imaanin bay annakana sii diyaarin jirtay way noo sii mayli jirtay looshin bayna sii marin jirtay wayna sii qurxin jirtay cadar bay noo sii marmarin jirtay annakoo diyaara oo aad moodeen inaan daa aroos tegayno xaflad aan tegayno qurqurux badan oo naloo sii meeyo naloo sii subka baa aabahay yimaada markuu jeliska uu alba maftaxa ku dhufto ay tiraahdo shakora yaa waxay tiri marka aabahay hooyadii halka tuwal baa u saaran aabahay kursi baa albaabkay u dhigtay bay tiri kursigii bay ku fadhiisisa kabahay ka bixisa mariyihii uu xidhnaay sare ka bixisa tuwaalkiina way siisaa waxay tahay musqusha galo soo meeyo alaabtiisii bay tiri marka musqusha ayay u taallaa markuu ka soo baxo uu musqusha ka soo baxo cuntadii oo diyaara ayuu u yimaadaa 2 saacadood ayuu asagu nastaa
أما والراحيستا مرو عنت عنيو مرو هو يلا شيكيس لبا ساعات كبعد بان لا سيابيت إذنك إنه آباي أصدقنا مركا سانو صدقنا سانو لا عيارة أنا نقولهم كنا حتى ونسيت أرض دبصيح ذا بهم برتوك الله يعني احترام كمركا نينك عنك الله احترامه وحن كبرتك ويدي كبعدنا وحن آخر السنة دي النبي صلى الله عليه وسلم عنك الرجال الله لا رقمه أيام برت وحكي الركفة ربضان وهل كان ما أنت حد لينين وصيدا في دميرت قرية كور وريقة وملها ما رمو مقاحبك صو شيكينيا هل كان مو كلبه هل كان مربو هبل ليرو تجيا هبل بان ميل جي بو أراني أنت وحسوجيا أنت تكسر حنصه ويقولي إلهي تي بس عنده وحسوجيا أنت تقولي ما شاء الله كسر حنصه waayo wuxuu ogyahay markuu jidh guriga soo galo in lagu bilaabayo maxaad qabatay xagaad tagtay maxaad samaysay dagaal buu marka u diyaar yahay dagaal wallahi mid wuxuu igu yiri qaylan guriga marka albaabka sidaa u furo waxaad moodaa buu inay aniga isugayso markan albaabka sidaa u furo waa ay soo fatahda ayadoo qaylansan ka seexdaa buu yiri ayadoo qaylansan waan soo toosa saanaha buu tara habeen isku xaar dhimay qaylanaysa mise وين نسيتها؟ حلوقة شيء ده مركع عرورتي كور مركع عرورت هذه وحول عرورتي إما احترامان إما مقلان إجماد ضمبيان وحبا إجماد دقيستان وحبا إجماد دقيستان واحد كتر هذا ساقط سيدا أباها ساقط هالنقل كتر هذا عرورته أرض وحخرصه إلى معناها النق أرض وحخرصه بالضمركة لقى أعوذ بالله استو كبرد الصاداني أي صالحة وأن أي فاسدة تحي غيركي يبول شدي ويقبيسك وحما صائب وأنك نلقو ابتلاء إلهينا سبحانه وتعالى هيدي كبد بادية فساد كبرد وحا كمدا دمركي inay baxayaan miya aragteen dumar habeenkii guuraynaya miya maqasheen wali waxaanu u naqaanay gabadhu hadday cishaay markay cishaay wixii ka dambeeyay haddii aanay khayr ku maqnayn inay ceebtayna gurigeeda ka maqnaato gabadhu annaka waxaa ilaahay nagu ibtileeyey dumar doonayna habeen oo dhan soo jeedaan war ma security ba maxaa xaggaa la tegayaa aroosya la samaysanaya xaflado weekendka aanu aroos jirin ayaga is casuumaya ilaahay noo barakay dumarka waxaynu naqaanay dumar ma sha Allah ilaahay subxaanahu wa tacaala hayna wada asture dumar gurigooda u soo qoyda مصائبك إمك أنك حق يجا وسك مركز لإيجو نهايسته وحويه كبردي واحد دون سئينه هبين أردن أما هو حفلة أما مالي كسر شيء نسا قارب هبين كاد مدين نايتشف جليان با إلى هنا وح نقول قوة أنفسكم وأهليكم إلى هنا وح نقول أمري إنكم يدوم غيرهنا إنه بدبادينه نحن وح لقوا أمر وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها خيرك واحد كو أمرت إني تكدان ونصبر مالك كنت الله القرآن كما تشرته قبل هذا هبينك هجو رئيسه ونصبر ما تشرته من حديثنا كمان أرك آياتنا كمان أرك من أي الشريعة الدمر كأو أجران سئين مالها هبين أردن أي سيد في دمرت أي لغيان وأروسية كصوتنا أما أي ما تشرته كبرت مرها كبرت مسلمات وحلقة في الأيام إن إلهي سبحانه وتعالى كعبسط ونين كذا يرير كذا أي درياش كبرت صالحة وحلقوا يقانا إن درياش رير كذا ينين كذا واتق حديث كي ومسلم وذا ما قش ومسلم وحى قرصين با قرصين أنصارت الماء سودران المي با كحانون صدي المي مركو حانون صدي ودنت المه أضيق يوم مقن المه بي آستي
reeshaqadii bay dhammaysay habeenkii bay isu diyaarisay ninkeeda way cashaysiisay ninkeedii bay isu diyaarisay markii wax walba dhammaadeen bay tidhi ka warran bay tidhi hadduu qof ammaano inagaga tago haddana uu ammaanadiisii uu la noqdo inaynu ka xumaano aynu ka xanaaqno ma waajib bay nagu tahay dee may ammaanada celi buu yidhi maxaa ku waalay waxdaba ilaahay ammaano uu ina siiyeyo ammaanadiina wuu la noqday ilmo yaroo ammaano uu ina siiyo ammaanadiina wuu la noqday wuu xanaaqo wuxuu yidhi maano ilmahayga dhintay ayaad isukasay qurxisay ee cashaysiisay ad waxaad uu cadhooday waabuu duday nebigiibuu u tegey sala allahu calayhi wasalam waa nin dudaya markaa gabadhii caynkaasay umma sulaym caynkaasay igu samaysay buuhi yaa rasuul allah wuxuu uhi nebigu sala allahu calayhi wasalam way axsanad way hagaajisay arrinta ilaahayna xalayto ilmo ayuu idinka abuuray culammadu waxay dhahdeen ilmahaasi dhashay habeenka ilmaha ilaahay abuuray markuu dhashay uu weynaaday horta 7 inan oo xaafida ayuu ilaahay siiyey khayrkii adduunka iyo aakhirana wuu siiyey ilmo saalixa buu ahaa ilmo saalix ayuu ahaa dadka meero fara badan ragga Soomaaliyeed waxay ka ashkatoodaan waxay yiraahdaan dumarka iyagu waxay isqurxiyaan oo ay isdiyaariyaan waa marka aroos la tagayo soo dhab maaha iska qeyrta dumarka idima arkayaane iska qeyrta idima arkayaane gabadhaynu dumarkeen haddii maasha allah habeenka aroos jiro dirici ugu dambeeyey dahabka meel allaale meel ka keenan garan mayne way iska lulaan dumarku berigii hore waxaa la yidhi dacas bay isa dhici jireen intay ismariyaan baa la yidhi bahalkii maxaa la odhan jiray mayba boorarkii dambe u yihiin boorarkii imika gabadhu makiyash bay tegaysaa saloon bay tegaysaa timahay soo feedhaysaa wayse soo qurxinaysaayo caynka gabadhiyaad xural cayn moodid ayaa kaa baxaysa waxay soo noqonaysaa iyadiyo daalan diricii iyo dahabkii iyo wixii aad u iibisay ma ayadu ama iyadu iibsatayba adugu kolleyba horta laa tatamatacu bih dadka dabadda jooga ayuu ilaahay subxaana wa tacaala nasiibkooda siiyey nin baa ka sheekeynayey wuxuu yidhi gabadhaydiibaa waa la soo hadlay waxaan ku idhi caawa waynala casuumay diyaargarow casuumad ayaa caawa jirta diyaargarow wuxuu yidhi gabadhii baan u imi makeup bay isa sii marisay way isa sii qurxisay xamuurad bahalkii indhaha maxay xirribo beena oo aad moodid kuwii gorayada in dhabanadii bay casaysay cidiyo beena oo fayka ay iska taagtay wuxuu yidhi gabadhii oo aad moodid xural cayn baan gurigii imi oo diyaar gabadh markaa waan fadhiisay kabihi baan iska bixiyey way iyara sugtay waxay sugaysaa intaan meydhmeydhanayo waan meydhmeydhay bajaamahaygii baan iska soo xidhay macawisaydii waan dhex fadhiisay gurigii waar maxaa dhacay bay tiri miyaanaynu baxaynin wuxuu yidhi maanta innaka iscasuunay innaka ayaa iscasuunay oo waxaan u darsaday wuxuu gabadhaydii quruxda badnayd inaan mar kale arka ayaan jeclaaday marka ilaahay ku barakay waad qurux badan tahay sidaa inoogu joog buu yidhi waxay tiri makaa dhabba haa buu yidhi oo kaftan maaha kaftan wuxuu yidhi intay sidaa tidhi ayaa wixii ay dibnaha marisay iyo wixii ay dhabanada marisay iyo wixii indhaha marisay bay sidaa isku dhamboqday buu yidhi cifriid yar baa ka soo baxay buu yidhi meeshii ilan kalarol buu leeyahay cifriid yar hooyada ku kadabgobay tiri markaa waa kan hooya ku kadabgo gabadha muslimadda waxaa looga baahan yahay inay ninkeeda isu qurxiso oo haddii ay doonayso xaflad iyo inay bedelato iyo caynka inay waqti munaasiba ay u timaado ay tagto oo aanay ka noqoto wadaadada ka mida ayaa wuxuu yidhi gabadh wadaad sheekh macruuf oo la yaqaano halkana mar idinku yimi
ayaa wuxuu ka sheekeeyey qoysku caynku u dhaqmi lahaa iyo raxmadda iyo mawadada iyo jacaylka. wuxuu yidhi markaa gabadh baa muxaadaradii bay dhegaysatay, waxay tidhi caawa sheekhu wuxuu sheegayo ayaan ku dhaqmaya. wuxuu yidhi way tagtay, gurigii bay diyaarisay, uunsi bay ku shiday, casho wanaagsan bay samaysay, iyadii baa isqurxisay, miiskii bay cuntadii dhigtay, wadaadkii baa guriga soo galay. wadaadkii markaa wuu yara yaaba dee meeshii qiiqu sida isu haysto, ayadiioo dhalaalaysa wuu iska aamusay. cashadii buu cunay, shaah baa loo keenay, wuu iska fadhiistay. hadha buu leey naa heblaayo caawa yaa inoo imanaya. say tiri cid inoo iman maysee adiga ayaan sukaa qurxiye. rasuulillah ma kaa dhabbaa. way soo noqoto, way xanaaqday. waxay tii maryii baan iska bixiyey, waan iska seexday. sheekhii bay tii nasiixaddii aadna siisay may shaqaynin, oo dee ninkayga imuu qadirin juhuudadigan isgeliyey iyo dadaalkan isgeliyey iyo wixii muu qadirin. wuxuu ku yidhi sheekhu, wuxuu yidhi kaagamuu baranin. hadduu kaaga baran lahaa oo maalin walba isu qurxin lahayd ama wiig walba isu qurxin lahayd dee wuu qadari lahaa. laakiin wuxuu bartay marka la isqurxiyo ee dahab la iska lulo ee dibnaha la caseeyo inay tahay mar la baxayo. marka waxaan leeyahay gabadha muslimadda ee weliba soomaaliyadda inay ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsato oo ay ka fogaato waxyaabahaas oo kale, risaaladii loo dhiibana inay fahamto. waxaan ku soo gunaanadayaa markaa kow rag iyo dumar borta inaan ku dhaqanno bikitaab illah, ina kitaabka ilaahay lagu dhaqmo. ha uguna horayso alqawaama. ilaahay qur-aanka wuxuu ku sheegay oo wuxuu yidhi alrijaalu qawaamuuna cala annisaa. alrijaalu qawaamuuna cala annisaa. qawaamaddu markaa waa maxay? inuu ninku uu noqdo madaxii guriga, maaha inuu noqdo jeeniga ama dabadhilifka, maaha. waa madax, waa qofkii mas-uulkii guriga. waayo yowma alqiyaamaha waxaa la weydiinayaa mas-uuliyadda guriga waa ninka, isagaa lagu horraysiinaya. waxaa lagu horraysiinayaa gabadhaadu xaggay tagtay, inantaadu xaggay tagtay, carruurtaadu maxay cuneen, maxaa gurigaaga ka jiray, ma telefisyoon iyo fusq iyo fasaad iyo musalsalaad baa la daawan jiray, mise muxaadaraad iyo duruus iyo cilmiba guriga lagu akhrisan jiray, ma telefoon iyo ghiiba iyo namiima ayaa ka socotay, mise dikrullaha iyo waxa ka socday wax ilaahay la xusayo. ninka ayaa laga waraysanaya. gabadhu marka ilaahay wuxuu sameeyey aadanna xaawo ayuu agdhiga ku laray. ninkuna waa markaa wuxuu taagan yahay maqaam aadam aabaheen calayhi salaam. gabadhuna waa xaawo kale. hadafkuna waxay ahaayeen ina dhurriya saalixa ay keenaan, khulafaa ilaahay ugu talagalay inii jaclin fi lardi khaliifa. khilaafadda ilaahay ka hadlay inay ka wada shaqeeyaan ninka iyo gabadhuba, inay labaduba ku dadaalaan ayaa la doonaya. waxaan idinku celinaya oon aad iyo aad ugu celcelinaya gabadha muslimaddii inay ilaahay ka cabsato, ay u saburto ninkeeda iyo caruurteeda iyo risaaladii ilaahay u dhiibay inay xambaarato ay la socoto, aanay ku mashquulin waxyaabo bilaa macno ah iyo tafaahaat dunya iyo heblaaya la guursaday iyo heblaaya la mehersaday hudheer kasta lagu qabsaday iyo heblaaya la isfurayo waxyaabaha. laakiin inay ka fakirto caynka reerkeeda u badbaadin lahayd. ninkanu markaa asaguna qawaamadii laga filayey inuu la yimaado. waayo ilaahay subxaanahu wa tacala waa kii qur-aan ku sheegay quwa anfusakum wa ahliikum, waa kii ilaahay qur-aanka ku sheegay. aniga intaasay iga tahay waano. ilaahayna subxaanahu wa tacaala ha inaga dhigo aladiina yastamicuuna alqawla fayattabicuuna axsana. horena waan idinku sheegay muxaadaradani waxay ahayd dowra almar'a fi lislaam. ugumana jeedo inaan dumarka la cambaareeyo ama ragga in ziyaada ah la saaro. ragguna tooda way leeyihiin, dumarkuna tooda way leeyihiin. insha allah marka dambena wada hadalna waxaa laga yaabaa inaynu waajibaadka rag laga hadlo. oo waxaan arkaa aniga aad iyo aadan u arkaa ninkii horta geedkii nin la odhan jiray wuu dhammaaday. xagga yaga wax rag la yidhaahdaa ma joogaan, waan aad ugu yari. xuquuqda waddanka yagu 4 darajadood weeye. ixtiraamku 4 darajadood weeye. ixtiraamka ugu horeeya waxa weeye waxa la siiyaa
iyo xuquuqda ugu horeysa waxa la siiya waa dumarka xuquuqda labaad iyo ixtiraamka labaadna waxa la siiya waa caruurta ka saddexaad maxaa u malaynaysaa waa ayga iyo bisadaha la siiya xuquuqda afaraadna waxa weeye ragga ayaa la siiya marka raggii ku soo socday horta Yurub iyo anugu imanaya Mareykanka de ahlan wa sahlan caynkaas aan ku nool horta haddaa jeceshiin number 4 ka gashaan la soo gashaan de ahlan wa sahlan haddii kala qawaamadina iyo sharaftina iyo ciizadina ilaahay idin siiyay fi araadi almuslimiin taa nicmaysta taa hala nicmaysto marka raggana maalin ma la hadli doona laakiin muhaadaradan waxay ku saabsanay dumarka walillahi alhamdu wal fadl wal minna subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala